Assalaamu calaykum. Adduunkan aad joogto laguma siiyo waxaad taqaano, laakiin waxaa lagu siiyaa waxaad qabato. Haddii aad xarakaad samayso, waxaad kicisaa dhammaan waxyaabihii kuu horseedi lahaa inaad guul gaarto. Sidoo kalena dadka kugu xiran waxay ogaadeen saad adiga ugu jeelan tahay hadafkaaga, kuwaasoo kuu soo jeediyaan dareenkooda. sidoo kalena dadka isku hadafka iyo isku yeelka tiin waxay bilaabaan inay kugu soo xidhmaan. Istaag oo fadhi ka kac oo wax ka baro khibradaada. waxyaabahaasi oo laga baran karin dad aad dhegeysto iyo buug aad akhrido, laakiin adigoo la kaashanaya khibradaada waxaad barataa sida saxda ah uguna dhaqsaha badan ee wax loo qabto. dhammaan waxyaabihii kugu muuqanayay adayga iyo kakanaanta iyo jahawareerka. bilow inaad soo jiidato dad kugu taageera isla markaana ku dhiirigeliya markaad ficil samayso iyo dhaqaaq. shayga kaliya ee kala saara dadka guuleystay iyo kuwa aan guuleysan waa ficilka iyo dhaqdhaqaaqa. si aad u noqoto qof guuleysta, samee wax dadka guusha gaaraan sameeyaan, kaasi oo ah ficil iyo dhaqdhaqaaq si aad u gaadho natiijooyinkaad rabto. sidoo kalena waxaan ku leeyahay horumar wanaagsan. haddii aad mar uun isku daydo inaad ficil samayso, waxaan kuu ballan qaadayaa guushaada inay soo dhowdahay. ha walaasheedii ama walaalkaygiyo waxaana ku leeyahay ku guuleyso labada daarood, yacni adduun iyo aakhiraba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.